soo dhow walaal haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar si muuqaalada mustaqbalkan soo gelin doona ay kuu soo gaaraan muuqaalka la gare si dad badan u gaaro na caawiyo waad mahadsan tahay. waxaan filaa mar inaad isweydiisay maxaadan wax diradda u saari karin. muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay ka jawaabidda su'aasha ah maxaadan wax diradda u saari karin, muxuuse yahay xalka. dunida maanta qofka ugu awoodda badan waa qofka yaqaana sida diradda wax loo saaro. dunida aan joogno maanta qofka ugu awoodda badan waa qofka yaqaana sida diradda wax loo saaro. dad badan maanta waxaa dhib ku inay diradda saaraan waxa ay baranayaan ama shaqada ay qabanayaan ay ku milmaan, waxaasi keliyana ay qabtaan way adag tahay. waxay is arkayaan iyagoo maqan meelo kale ka fikiraya. haddaba maxaadan wax diradda u saari karin, muxuuse yahay xalka. aan ugu horeyn ka jawaaba maxaadan wax diradda u saari karin. waxaa jirta laba dirad saar oo lagu kala magacaabo scattered focus iyo direct focus. scattered focus waa adigoo isu qabanayo howlo badan, sida adigoo cunto karinayo inaad nadiifiso kushiinka aad wax ku karinayso, in adigoo buug akhrinayo aad ka daawato muuqaalo tiktok. ma jiro hal wax aad diradda saarayso, balse waxaad isu haysaa howlo badan, taasoo sababi karta in dirad saar kaaga lumo. dirad saarka labaad waa direct focus, waa inaad hal wax diradda aad saarto. haddii aad akhrinayso buug waa inaad akhrido buuggaa keliya aadan wax kale qabanin, in buugga aad ku milanto kadibna natiijo fiican iyo faham fiican aad ka qaadato waxa aad akhrinayso, maadaama dareenkaaga oo idil aad isugu geysay. haddii labadani dirad saar aad kala fahantay, waxaan hubaa inaad samaynayso qodobka koowaad ee scattered focus, kaasoo kugu diiday inaad diradda aad saarto hal wax. adigoo isu qabanaya howlo badan ayaad rabtaa inaad diradda wax saarto, taasoo aadan ka helin natiijo fiican. haddaba muxuu yahay xalka? mar kasta oo aad rabto inaad wax diradda saarto, samee qodobadani soo socda. kow, xadid waxa aad rabto inaad diradda aad saarto iyo inta waqti aad rabto inaad ku bixiso. tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad akhriso buug, waa inaad xadidaa inta beej aad rabto inaad akhriso iyo saacadda ama daqiiqadaha aad ugu talagashay inaad qaadato. labo, wax kasta oo ku dhistaabgarayn kara iska fogey, sida in mobilkaaga aad seelanta iska saarto kadibna meel fog aad iska dhigto. saddex, ka hor intaadan bilaabin wax aad diradda saarayso, dareenkaaga soo xaadiri, maskaxdaada ka saar wax kastoo ka fikirayso. haddii ay howl kuu taalo hawshaa qabo, haddii aad rabto inaad wacdo saaxiibadaa wac oo la hadal. adigoo wax kasta soo dhameeyey bilow waxa aad rabto inaad diradda aad saarto. runtii qofka isku qasba wax fokusgaraynta wax kastoo uu qabanayo waxa uu ka keenaa natiijo fiican. inta ayuu ku egyahay muuqaalkani. haddii aad ka heshay laagare, sidoo kale saaxiibadaa la wadaag. waad mahadsan tahay.